ilaah ayaa subxaana wa tacaala ayaa mahad leh oo maanta noo suurageliyey inuu noo soo gabagaboobo imtixaankii sanad dugsiyeedka 2018-2019 dugsiga hoose dhexe sare ee Imaam Nawawi Balcad. runtii waxaan soo qaadanay sanad dugsiyeed runtii ardayda iyo macallimiinta iyo maamulka ay ku midaysan yihiin oo maartay ahaa sanad runtii macallimiinta iyo maamulka dadaal ay u galeen in ardayda ay qaataan manhajkii loogu talagalay sida loogu talagalay inay u qaataan. sidoo kale waxaan halkan ugu mahad celinayaa dhammaan macallimiinta, ardayda iyo waalidiintaba oo runtii dadaal iyo juhdi maartay muujiyey. markaan kala qaado macallimiinta runtii waxay muujiyeen dadaal dheeri ah oo maartay juhdi ugu bixiyeen sidii ardayda ay u gaarsiin lahaayeen manhajka. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa waalidiinta ayagana maartay runtii caruurtooda ku dadaalay sidii ay maartay u qaadan lahaayeen waxbarashada ama daraasada si ay u dhamaysan lahaayeen si ay maartay uga qayb galaan imtixaanka madambaysta ah. sida caadada ahna dugsiga Imaam Nawawi waxaa looga bartay waxbarasho tayo leh sababtoo ah macallimiinta ka dhigta dugsiga waa macallimiinta takhassus ku ah maadooyinka ay dhigaan, taasoo suuragelinaysa maartay in ardayda ay qaataan duruus tayo leh ayagoo maartay nasiib u yeeshay macallimiin maartay runtii dadaal iyo waxbarasho iyo juhdi ku bixiyay siday maartay heer u gaar lahayn ardayda. ardaydana runtii waxaan ugu mahad celinayaa maartay ayagana siday maartay uga qayb qaateen ay u imaanayeen maartay xiisadaha ayna dadaal ugu muujiyeen intii imtixaanka maartay uu soo dhawaa waxbarasho maartay akhriska iyo dadaalka ay ku jireen aan la soconay. markaasna runtiina taasna waxay keentay in ardayda ay maartay imtixaankooda ay ka muuqatay inta lagu jiray imtixaanka dadaalkii ay soo bixiyeen iyo akhriskii maartay dadaalkii ay maartay ay ku soo bixiyeen imtixaanka. waxaan maartay runtii mar kale u mahad celinayaa dhammaan ardayda iyo macallimiinta iyo maamulkaba. waxaan rabnaa hadduu ilaahay yiraahdo dugsiga labada bilood uu xiran yahay sida caadada ahayd waxaa jiri jirtay maartay koorsooyinkaasoo maartay loogu talagalay dugsiga hoose dhexe in maartay ay ka qayb qaataan. koorsooyinkaasoo u fududeynaya ardayda in maartay runtii ay maartay niyadooda ay kor u kacdo. labadaas biloodna maartay iskuulka xiran yahay waxaan rajaynayaa maartay in waalidiinta maartay ardayda u dhigata dugsiga in maartay uga faa'iideystaan sababtoo ah maartay waxa weeye maartay waqti ku soo maraya hal sano hadduu dhaafo ardaygana maartay sanad kale maartay ku xiga ayuu maartay noqonayaa. marka waxaan rajaynayaa in ardadana ayagana maartay waalidkaba ay arintaas ay la socdaan. sidoo kale waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yiraahdo sanadka soo socda ilaahay inuu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo iyo bashbash. ilaahayna maartay waxaan ka rajaynayaa maartay subxaanahu wa tacaala inuu maartay awoodiisa maartay asagana maartay nagu gaarsiiyo. sida aad la socotaan dugsiga waxaa ka socota dhinacna ka socda dhismo, taasina waxay ka mid tahay dadaalka iyo juhdiga maartay maamulka iyo maartay macallimiinta iyo waalidiinta iyo degmada maartay maamulka degmada ay geliyeen in dugsiga uu helo qaybo kale oo maartay iskuul fasalla ah. sababta keenaysana waxay tahay ardayda oo aad u sii badatay. runtiina waa nasiib wanaag in maartay sanad dugsiyeedkan gabagabada ah oo maanta dhismihii maartay loogu talagalay dugsiga ee lagu ballaarinayay oo maanta asagana marayo gabagabo. runtii markaan dib u noqdo waxaa maartay barnaamijkaas runtii dadaal iyo juhdi ku bixiyey rag reer Balcada oo ugu horeeyo xildhibaanka iyo maartay injineer Maxamed Xuseen oo asagana ah maartay runtii reer Balcada asagana oo runtii kamid ah aqoon-yahanada dalka si maartay dugsigan u helo qaybo kale oo maartay lagu ballaariyo si ardayda deegaanka ama degmada Balcad ay runtii u helaan fursad ay u helaan inay maartay waxbarasho dugsiga in loo sii ballaariyay. sanadka furitaankiisa waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo in ardayda ay soo noqdaan isagoo dugsiga isbedel uu maartay ku yimid xagga dhismaha iyo xagga tayada iyo dhinac kastaba. runtii waxyaabaha maartay runtii aan ku amaanayno qolada dhisaysa dugsiga
haddii aan sheego ah hay-adda maaragtay maxaa la yidhaha qadar khayriya oo dugsigana maaragtay dhismaheeda hadda gacanta ku hayso qaybta cusub oo dugsiga. waxyaabaha aada uga maanaya waxaa ka mid ah in ay maaragtay qaybaha hadda iskuullada fasalada ee dhisaysa ay ku soo dartay qayb ceel ah iyo masjid oo aada u ballaaran oo runtii xataa khudbo lagu dukan karo, kaasoo runtiina labada dhinac looga faa'iidaysan karo, xagga ardayda iyo xagga bulshada ku dhaqan maaragtay agagaarka dugsiga. runtiina aad baan ugu mahad celinaynaa hay-adda oo runtii dadaal iyo juhdi ku bixisay in dugsiga qaybahaas ay ku soo ballaariso. waxaan halkan codsi kale ugu jeedinayaa madaxda hay-adda qadar khayriya, qaybta hadda ay dhistamee qaybta kale ee runtii ee horey u dhisnay qadiimiga u ahayd ee dugsiga ee la dhisay lixdameeyadii. waxaan maaragtay ka codsanaynaa maaragtay hay-adda madaxdeeda iyo maamulkeedaba sare in qaybtaasna maaragtay maxaa la yidhaahdaa dayactir ama dibudhis ay noogu sameeyaan, si maxaa la yidhaahdaa uu dugsigu isku raaco, fursadna ay ugu noqoto in dugsiga wakhti dheer uu sii jiro. dugsiga sida la ogyahay wuxuu soo jiray 60 sano maaragtay ku dhowaad. dadka maanta wax ka bartay waa dad maanta wasiiro iyo agaasimayaal iyo maanta dadka maanta wadanka maaragtay hogaamiya ka mid yihiin. maanta qaarkoodna jaamacadaha hormuud ay ka yihiin, jaamacadaha wadanka Soomaaliya qaar dibadaha ay maaragtay ka yihiin. taas waxay cadaynaysaa dugsigan inuu yahay dugsi qadiimi ah, runtiina uu soo jiray maaragtay muddo dheer. waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaah yiraahdo qaybaha kale ee dhiman aan maaragtay rumaysanahay in maaragtay hay-addu ay barnaamijkaas ay xoogga saari doonto in qaybahaas dhiman maaragtay inoo dhammaystirto hadduu Ilaah yiraahdo, si ardayda caruurta ku dhaqan degmadan Balcad ay fursad ugu helaan waxbarasho deegaan maaragtay maxaa la yiraahdaa runtii ku wanaagsan waxbarashada. runtii mar labaad iyo mar saddexaad waxaa u mahad celinayaa dadkii ka qayb qaatay dhismahan cusub ee hadda noo socda, ugu horeeyo hay-adda maaragtay xildhibaanka iyo maaragtay maxaa la yiraahdaa injineerkaba. waxaan rajaynaynaa haddaan anaga isku duuban maamulka iyo macallimiinta dugsiga Imaam Nawawi. mar labaad waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismahaas. waxaa iyadana sidoo kale halkan xusid mudan maamulka degmada oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada oo asagana maaragtay suurtageliyey in dugsiga ee maaragtay maxaa la yiraahdaa laga dhaqangeliyo degmadan. runtiina gudoomiyaha Qaasim wuu ku amaanan yahay asagoo bilaa shuruud maaragtay shuruud la'aan maaragtay u ogolaaday in maaragtay hay-adda ka dhiso degmada. runtiina waa ku ammaanaynaa arrinkaas. waxaan leenahay gudoomiye waa aad ugu mahadsan tahay, waxaad maaragtay u turtay, waxaad maaragtay horumarna u samaysay waxbarashada deegaankan. waxaana haddana kaaga fadhinaa rajaynaynaa hadduu Ilaah yiraahdo in aad sii horumariso waxbarashada degmada dhinac kasta ha noqoto, xagga caafimaadka, xagga maaragtay maxaa beeraha, sidaad hore noogu ballan qaaday. marka waxaan rajaynaynaa gudoomiye adigana maaragtay inaad maaragtay xoogga maaragtay sida aan kaaga baranay inaad maaragtay maxaa la yiraahdaa xoogga sii saari doonto horumarka degmadan. waana rajaynaynaa inaa halkaas maaragtay ka sii qaadi doonto hadduu Ilaah yiraahdo. runtiina waxay ku timid horumarkan midnimada ka dhaxaysa maamulka degmada iyo maaragtay dadka reer Balcad deegaanka ku nool oo maaragtay midnimadooda maaragtay ay ku timid in maanta ay helaan maaragtay dugsi qurux badan. haddana maaragtay sida maaragtay la rajaynayo dhismooyin badan hadda ay ka socdaan. haddana la rajaynayo in isbitaalkii dib loo dhiso sida maaragtay gudoomiyaha hadda kor noogu sheegay. annagana maaragtay waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaah yiraahdo Ilaahay inuu garab galo iyo dadkii kale maaragtay barnaamijkaas la wado. waxaan rajaynaynaa in degmadeena ay horumarto, ay noqoto degmo horumartay, dhinac kasta ka horumartay, caafimaadka xagga haddii la yiraahdo, xagga waxbarashada, xagga beeraha, xagga xoolaha, in maaragtay ay noqoto degmo oo ugu dambeyn ay hesho jaamacad oo runtii degmadan arday badan ka soo qalin jibinayso inay hesho jaamacad. waxaan ka rajaynayaa maamulka maaragtay asagana gacan inuu ka geysan doono arrinkaas, waana noo ballan qaaday annagoo isku duuban in la helo jaamacad maaragtay degmadan. sababtoo ah degmadan waxaa ka soo baxdo arday aad u badan. marka si loo helo ardadaasi qarashka uga baxaya maaragtay Muqdisho in qarashkaasi uga bixin in degmadooda loogu keeno maaragtay jaamacad dhameystiran. halkan waxaan mahad ballaaran uga soo jeedinayaa wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee Hirshabeelle mudane Abuukar Xasan Abuukar oo runtii dhismahan hadda socda ee gabagabada ah asiga la'aantiisa maaragtay ayna socdeen, qayb weynna ku lahaa maxaa la yiraahdaa barnaamijkan halkan ka socda dhismaha. runtii wasiirkana mar labaad iyo mar saddexaad waan ku ammaanayaa
waxaan dhihi karaa wuxuu ka soo baxay waajibkiisii runtii waana maaragtay runtii waa wax lagu xasuusan doono mustaqbalka fog waxyaabaha uu qabtay degmada marka waxaan dhihi lahaa wasiirka aad ayaad nagu mahadsan tahay runtii dadaalka aad noo muujisay degmadaada aad maartay ama degmada waxqabadka muujisay runtiina waxaan rajaynaynaa halkaas inaad ka sii wadi doonto hadduu ilaahay yiraahdo waana hubaal inaad halkaas ka sii wadi doonto wasiir waxmar labaad waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay ilaahay inaan wax ka rajaynaynaa horumarka iyo maartay aan tiigsanayno inuu noo fududeeyo sanadkan sanadkiisana allaha nagu gaarsiiyo maartay nabad iyo maartay iyo nolol wanaagsan halkan sidoo kale waxaan maartay kugu baabinayaa ardayda ka qalin bedelatay dugsiga hoose dhexe sare Imaam Nawawi Balcad sanadkan maartay u dhamaaday dugsiga waxaan rajaynayaa iyagana inay dadaalkooda halkooda ka sii wadaan waxbarashada halkaas kuma dhamaato waxa u bilaabanaysa waxbarashadii sare waxaan rajaynayaa inay maartay dadaalkooda ay dadaal ku sii daraan بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maanta waxaan aad ugu faraxsanahay imtixaankaygi finalka inuu maanta ii soo gabagabo waayo maxaa yeelay arday ayaan ahay arday imtixaankiisa u soo gabagaboobay maanta oo ku guuleystay farxadiisa lama soo koobi karo waayo waxaan rajaynayaa sanadkan inaan noqdo ardayda ugu horeysa ama top 10 ugu horeysa iskuulka inaan noqdo waayo maxaa yeelay top 10 hadaad ka mid noqoto iskuulkeena wuxuu ku siin karaa xatii waxbarasho free ah oo sanadkaas oo idil free uga dhigan karto taasa ii dhiirigelinaysa inaan aniga maanta dadaalo anigoo ah arday dhigta dugsiga hoose dhexe sare Imaam Nawawi gaar ahaan fasalka form 3 oo hadda imtixaankiisa uu ilaaday oo noqonaya arday dhiganaya fasalka form 4 waan ku faraxsanahay inuu imtixaankeen noo dhamaado si wanaagsan imtixaankan wuxuu ku socday jadwal leh oo wanaagsan oo fiican waan u mahad celinayaa maamulaha iyo macallimiinta sidii ixtiraamka iyo wanaagga leh imtixaanka noogu keeneen ee nagu soo diyaariyeen waan ku mahad celinayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.